xogo dheeraada ayaa laga helayaa sidii xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo hubeysan ay ku gaareen oo weerar ay kaga fuliyeen hotelka SYL oo ay ku hareereysan yihiin dhammaan baraha kontaroolada ee laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. warbixintan waxaan kugu la wadaagayaa gaadiidka qaraxyada ee gudba halka ay mareen ay dhikaarada ay isticmaaleen xubnaha shabaabka ee weerar ka fuliyay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo maanta si toos ah u daawaday muuqaalka goobihii ay ka soo gudbeen gawaaridii qaraxyada siday iyo dagaalamayaashii hubeysnaa ee weerar ka fuliyay hotel SYL. weli waxaa socdo baaritaanada sida ay ku suurto gashay in gaadiid qaraxyo ay ku rakiban yihiin iyo dagaalamayaal hubeysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab inay u gudbaan oo weerar ay ka fuliyaan meel aan sidaasi uga fogeen madaxtooyada Soomaaliya irida koobaad ee laga galo gaar ahaan hotelka SYL la yiraahdo. waxaa la xaqiijiyay in laba gaadiid oo qaraxyo ay ku rakibnaayeen iyo dagaalamayaal hubeysan inay ka soo gudbeen baraha kontaroolada ee ciidanka militariga Soomaaliya Koofi Casto ay ka ilaaliyaan amniga madaxtooyada Soomaaliya. waxaa kaloo xogaha dheeraadka ee soo baxay ay tilmaamayaan in la helay xogta ay dhikaarada ay isticmaaleen dagaalamayaasha hubeysan ee ka tirsanaa kooxda al-shabaab ee weerar ka fuliyay iyo gaadiidka qaraxyadana ku gudbiyay baraha kontaroolada ee ciidanka. askar iyo saraakiil ayaa sakiiskan u xiran. ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyay in xubnaha shabaabka ee ka gudbay baraha kontaroolada ee ciidanku inay isticmaaleen ay dhikaaro baarlamaanka Soomaaliya ay leeyihiin gaar ahaan golaha shacabka sida wararka hordhac ee waqtigan soo baxaya ay tilmaamayaan. gaariga ay ka degeen dagaalamayaasha ee marka dambe ku qarxi doono ciidanka ammaanka waxyeeladan ay ka soo gaari doonaan saraakiil uu ka mid yahay taliyaha ciidanka Haramcad ayaa la xaqiijiyay in darawalkii gaarigaas waday ee ka tirsanaa shabaabka in uu wato ay dhikaar ay leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka sida baaritaanka waqtigan la helay ay xaqiijinayaan. sidoo kale xogaha soo baxay waxay sheegayaan in dagaalamayaashii weerar ka fuliyay iyo gaariga ay saarnaayeenba uu maray marinkan ama isgoyska sayidka oo uu yaalo barta kontarool ee ciidanka ilaalada madaxtooyada. sidoo kale waxaa iyaguna warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in xubnaha shabaabku ay dhankooda wateen ay dhikaaro ay kaga gudbeen barahaasi kontaroolada oo aan loo ogolayn qof shacab inuu maro. weerarka oo maanta la soo gabagabeeyay ilaa iyo haatan xogaha baaritaanada hordhac ee soo baxaya ayaa intaasi ku eg. ha yeeshee maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tagay xarunta hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee Habar Khadiija halkaas oo madaxweynaha si toos ah loo daawadsiiyay gaadiidka halka ay ka soo gudbeen ee xubnaha shabaabka kuwaas oo ay duubeen kaamirooyinka CCTV la yiraahdo ee ay xukunto hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. tani waxay muujinaysaa in feejignaan badan aanu ka jirin dhanka madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan ciidanka madaxtooyada ee ilaalada Koofi Casto la yiraahdo ee madaxweynaha amnigiisa suga sidoo kalena si guud u suga xayndaabka madaxtooyada oo ay ku shaqeeyaan baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha dalka. askartii ku sugneed barta kontarool ee sayidka iyo saraakiishii xukumaysay ayaa gebi ahaantoodba waxaa loo taxaabay xabsi. baaritaano ayaase ku socdo